السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك عليك السلام هذا عافمتكين الساتين أنا وادين في عنا إذا كان سيدو كلا إني رجينا يا ما أنتو حاوذا day in life هذنا maalin walba oo talaada inaan soo geliyo day in life araba soo waxaa dhacday maanta inaan soo geliyo rabay videogii aad diyaarsaday cod aan ku samaystay wax walba aan ku samaystay baa anigana hadana gacanteyda ku delete gareeye waa isku xanaaqa laakiin maxaa ka qaban karaa waxba marka videogii laakiin the good thing is clipyaal kale aan soo helay oo meel kale aan ku samaystay kuwii aan isku soo dardaray hadda waa kuwana laakiin clipyaasha badankood waa helay alxamdulillah hada marka quraacaan samaysanayaa quraacdeedu waxaa waaye boorash mise oatmeal waaye oo biyo iyo caano iyo waxaas kusoo kariyey and then kadibna saankaa kusoo ritay furkaas korka saaranaya malab yar ayaan korka ku darsanaya marka I'm gonna enjoy it insha Allah. sida kale caafimaadkeena walaalaha cusub soo dhawaada kuwa hore ila joogay idinkana soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videoyaasheeda daawanaysiin aad iyo aad idinka mahadcelinaya koofiyana dhac soo samaysan doonaa masha Allah marka maalin walba oo talaada insha Allah waxaan rabaa inaan talaadada ku dhaganaado oon talaado walba soo saaro videogan oo just day in a life waxyaalo kale hadda iga codsanaysiin idinkeena soo sameeyaa u baahan tihiin hoos waa iga soo qori kartiin hadday ahaydna waxaan rabo la soo gelinaya insha Allah. day in a life horta Tuesdayda mise talaadada waxaa qaadanaya day in a life schedule aan rabaa inaan ku socdo hadda marka hore waxaa madaxayga ka maaga ayaan sameynayay marka schedule-kayga wuxuu noqon doonaa Tuesday walbo day in a life maalin kalena waan choose gareynayaa cleaning video ma jeceshihiin haddaa rabtiin inaan cleaning video soo deeyo hoos igu soo maxaa la dhahaa igu reeba fariintiina xishoonina hoos waa meesha loogu talagalay in laisku barto comment sectionka mise commentka meeshiisa in laisku barto ayaa la sameeyey marka iyo qof walba inuu ra'yigiisa kusoo gudbiyo maxaa jeclaan lahaydeen inaan idiin soo badiyo more day in a life ma jeclaan lahaydeen mise waxaa jeclaan lahaydeen cleaning videos inaan marmar soo geliyo inta waa jeclaa day in a life na waan jeclaa cleaning videos waan jeclahay inaan daawado marka maadaama waxaan jeclahay inaan daawado inaan sameeyana waan jeclahay marka aan dhib iguma aha haddii oo cleaning videos aragtiin hoos waa igu soo qori kartiin day in life kana Tuesdayda ayaan usoo badalaya cleaning videogana maalina u sameyn doonaa insha Allah. marka hadda quraacdeeda soo dhameystay alxamdulillah macaan kaliya ahayd haddana waxaan samaysanayaa dharka iska dhaqaaya maanta raayaasheeda la dhaqaaya masha Allah dhar badan aan dhaqaaya laakiin idima tusanin in yar because ma rabo inaan clipka oo dhan uu iga buuxsamo dhar dhaqo oo kali ah marka dhar meesha lagu guraayo kalina waa boring moogta in dadka la tusiyo mise dhar la laalaabayo all day marka in yar laga soo qaatay dharkaad intuu iisii dhaqmaayo waxaa sameynayaa qada ayaa diyaarsanaynaa xawaajiyaashan isticmaalayaa garlic powder toonta shiidan chicken seasoning iyo waxaan isticmaalayaa paprika lemon pepper iyo huruud turmeric insha Allah iyo maraq digaaga beri hore waa iska dhaafay haddana hadda usoo laabtay samaha cuntada dhadhan u yaalaaba laakiin caafimaadka uma fiicno marka intii oo uurka hadhan waa iska dhaafay iyo intii oo xoogahoodii mar dhow kusoo laabtay I don't know laakiin inuu caafimaadka u fiican yahay in kale I have no idea but waan iska dhaafay horta anyway bas ana waxaan ahaa dadka oo markay uurka yihiin gabdhaha markay uurka yihiin dhiigga ku kaco alxamdulillah this time ilaahay dhaafiyey maraq digaag horta waan ku widgareeyey cusbada faraha badanna waan ku widgareeyey
inay taas i caawisay. I have no idea, laakiin alxamdulillah ilaahay isi qaado baan ku mahadiyaa. This time everything went smooth, alxamdulillah. Marka paprikagii wixii dhan ayaa kusoo dadareynaa, kadibna waxaan sameynayaa waxaa ku ridi doonaa instant pot-ka ayaan ku ridi doonaa insha Allah. maraq digaagii oon soo kululeeyay microwave intaan geliyay, asagii maraq digaaga iyo biyo yara qaaday microwave kusoo dhalaaliyay iyo xawaajiyaasha kale ayaan chickenka aan marinayaa sifa uu isku sii dhexgalo flavorka dhan. marinade ku sameynayaa for 30 minutes ilaa 7 daqiiqo camal ayaan dhaafi doonaa meel la dhigayaa. kadibna basal ayaan jarjaranayaa, waxaan yaroo basasha kusoo jarjaranayaa. basasha waxay kaaga dhigaysaa yaanyaniis. waxaana kasoo helay Meijer. I think meelaha kale dhan laga helaa laga yaabaa, laakiin ani Meijerka kasoo helnay. basashaas oo jarjartay hilibkii intuu hilibku iisoo bahalkiyoobe 30 minutes kasoo wareegtay. marka hilibkii basashii wixii dhan aan shiilaya chicken legs-ka ku dari doonaa insha Allah. markii aan saas sameeyo basashii waxaa dhan kusoo shiilmaan, waxaan ku dari doonaa haddana hilibkii ayaan shiilayaa asagana. kadibna biyo oo koob biyo leh ku dari doonaa. koobka biyaha ayaa enough ku noqonayo oo baastada hadaa wax walba noo karinayo. marka waxaa ku jecelahay digsigaanita waxaa waaye biyo yar u qaadanaya. mida kale wax walbana neefta ayuu ku dhijinayaa, marka wixii dhan isku karayaan. biyo badan maba kaaga baahnaba, hal bakeeriyo biyo camal aa ku shubeysaa dhac bas. cuntadaadana waxaa waaye 7 daqiiqo iyo 5 daqiiqo, hadiis 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo whatever ayay kugu soo karayaan. hadda chickenka waxaan u qabtay 7 daqiiqo, waa kasoo bixiyay biyihii wixii dhan meesha igu jireen. haddana baastada ayaan ku karsanaya, wuuna iigu karaba alxamdulillah. biyo kale kuma darin, halkaa bakeeri iyo wixii chickenka u dhalay everything ayaan baastada ku darsaday. macaanayna ahayd maasha Allah. digsigana aad uu ii caawiyay, aad ku caawinaya kule hadaad interest ku tahay waa laakiin ani aad uu ii caawiyay. marka intuu chickenkii wixii dhan uu sii haweysmaayo dharka ayaa qalajiska maxaa la dhahaa kasoo baxeen, waa la laabanayaa insha Allah. markaan laabtanaya qadadeena ayaan ku laaban doonaa kariskeeda. kasto 7 minutes kaaseeto wuu sii karaa. ana dharkaan iska sii laalaabaya, waxyaalaha kala qabanaya. markuu dhamaado haddana baastadeena iyo wixii oo dhan ayaan isku darsan doonaa insha Allah. dharka laabkiisa waa soo dhameeyay maasha Allah. hadda baasta kaliya ayaad galaynaa.
chickenka ayaan kasoo bixinaynaa meesha, kadibna basal iyo wax walba aan ku shiilanayna meeshii, yaanyo everything. digsigaanito haddana maxaa la dhahaa meel oo saatey haddaa rabtaa waa ku shiilan kartaa. waa ku shiilay marka hore chickenka waa ku shiilay, markaan shiilay wax yar oo gudgud kastoo yariis hasmeeyay. haddana waa biyahan ku dara kadib aan bedelay. hadday ma aqaan arkayseen waxaan ka dhigay pressure cook oo 7 minutes dhaqso uu karanayaa, dhaqso kusoo tuurayaa masha Allah. haddana markaan baastada aan shiilayo yaanyadii everything saatey ayaan geystay. saatey meesha oo shiilitaanka waayno marka waxyaalo badan ku karin kartaa. marka saateyga waa ku shiilanaysaa pressure cookerkana aan ku karsadaa ani bariiska hadhine, baastada hadhine, wax walbo haddaa rabtaa waxay dhan inta isku wada gediso macal chickenkii macal baastadii macal everything inta isku hal mar ku wada gediyo aan furka u xiro ayay ku kari karaan. laakiin waxaan ka jecelahay inaan wax walba shiilo oo sifo oo dhadhankiisu uu soo baxo. laakiin waxaan dhan biyaha iyo wixii dhan ka isku darsid waa la cuni karaa, laakiin ani ma ku haysti. waa cunto cuntada dadkan dadkan waxa cuntadooda marax waa mugtahay dhadhan male. laakiin waxaan ka jecelahay wax dhan in la shiilo ay isdhexgalaan, macaan miirano noqonaya. markaas waa baastada nooca aan isticmaalayo. hadda wixii dhan waan soo shiilay, waan isku soo dardaray baradhadii everything, biyihi soo yar bureen, baastada ayaan beer ku gelinayaa, furka ayaan ku xirayaa 7 minutes kale ayaan karinayaa. iyadana biyo kale kuma darin, biyihii oo maxaa la dhahaa chickenka soo baxaya halka bakeeriya marka hore ku darayay unbaa waxaas oo biyo dhale. biyo badan uma baahda, biyo badan taa ku shubtid, biyaha hadaa ku yareysidna wuu kaa gubanaya, hadda biyaha ku badisidna maxaa la dhahaa way jilcaysaa too much marka that was nice. chickenka diet oo la meesha kasoo bixiyay waxaan ku darayaa barbecue sauce, barbecue sauce ka kastoo yar kalarka rabaa inaan kaga yar bedelo, aad uu u macyahay, very nice ahead. ciyaalkana way jecel yihiin. marka baastada iyo chickenkaas haddaa isku cunto inaba caadi ma ahayn masha Allah. waxyar ovenka ayaan ku tuuray isagana sifo wax yar ugu yar guduuto oo flavorka oo barbecue uu dhex galo. inta xagga uu saas yahay waa kana baastada diyaar waaye masha Allah. quruxdaas ay kusoo baxday, was very nice. degdeg aan ku dhahay hal mar ku shub hal mar ka dijilay waaye. marka chickenka kaas asaas u soo ekaaday. gabadheeda iskuulka imaatay xiran hooyo baayaysa I'm hungry hurry up dhaqso ay u dhahday. marka iyada u diyaarinaa masha Allah. anigana teedo waa tanaaba kula hadda waqtigan soo gaartay. aad iyo aad u mahadsantahay. mar walba waxaan kaaga mahadcelinaa waqtigaada qaaliga. intaa waqti kale kulmayno idinka tagaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye guys.